بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سيد الله سعطان وحابريهن dalka Hindiya ka jiray dhibaato aad u xoog weyn oo uu ku hayay xanuunka COVID-19ka oo loo aaneynayay nooca coronavirus-ka Hindiya saameeyay inuu yahay nooc cusub waxa WHO ay u aqoonsatay noocaas oo loogu magac daray B1617 inuu yahay nooc halistiisa leh oo ay tahay in laga taxadiro sida aad la socotaan waxaa Hindiya ku sugan dad badan oo Soomaaliyeed oo ay ku jiraan kuwa badan oo reer Puntland ama waxa ka barteen ama siyaabo kala duwan ha u tageen haddaba si aanu u taxadirno loona xakameeyo khatarta ay leedahay noocaas cusub inuu wadankeena soo gaaro waxa anaga oo la tashanayna wasaaradda duulista hawada iyo immigrationka laanta Puntland aanu isla qaadanay in lagu booriyo dhammaan dadka reer Puntland hadda ku sugan Hindiya inay joogaan Hindiya oo aanay iman wadanka ilaa inta xaalku isbedelayo haddii ay dhacdo inay yimaadaan qof kasta oo Hindiya ka yimi ama ha noqdo qof reer Puntland ama ha noqdo qof Soomaaliyeed ama qof ajaanib ah waxa ku waajibaya in 2 usbuuc oo karantiina la geliyo si loo ilaaliyo badqabka dadka arrintaana waxa si dhow noogala shaqeyn doona wasaaradda duulista hawada iyo garoomada iyo immigrationka laanta Puntland arrintaas waa arrin runtii muhiim u ah xagga badqabka dadka waxaana lagu boorinayaa marka ugu horeysaba dadku inay joogaan Hindiya oo aanay iman waxa kale oo la dhigi doona hadii la haydo garoomada gaar ahaan garoomada diyaaradaha caalamiga ka soo degaan iyo waliba dekedahaba إعلان كسابسن تلاوين كلاقي قاعد دون ضدك كيم هندية دلشدود النوع دون تبع هالنقطة ودن كي دونان بتراسة حكوسو مرين تلاوين كوحللو ولا دون ذكرها ربوده العالمية هدي الهاي المو وحان كلا أو ربع إن فرصة نوقف إيديستو إن تلالكي كوفيد-19 كا وتشيسي لبعض أما دوسكي لبعض la bilaabi doono 29 bishan maalin sabtiya oo dadkii hore u qaatay dooskii koobaad dooska labaadna la siin doono marka laga bilaabo 29 bisha May waxa dadka lagu boorinayaa qof kasta oo qaatay dooskii hore inuu u soo diyaar garoobo inuu dooska labaadna qaato meelihii uu ka qaadan jiray ama meelaha ugu dhowna uu aado dokumentigii la siiyay iyo waraaqihii la siiyayna uu la yimaado ayaa lagu boorinaya runtii waxaan rabaa inaan dadka ku booriyo talaalka inay qaataan cidii hore u qaadatayna ay dooskii labaad u soo diyaar garowdo cidii aan hore u qaadanna loo hayo talaalkii koowaad ee la siin lahaa waa laga maarmaan in talaalka la qaato waana waxa ugu wanaagsan ee aynu iskaga celin karno xanuunka COVID-19ka in la badiyo talaalka qof kasta oo 18 ka weyn ayaa loo ogol yahay inuu talaalka qaato haddii marka laga reebo dumarka uurka leh iyo dadka xasaasiyadda ka qaba xanuunkan dabcan wixii faahfaahina waxa siinaya qofka marka uu goobta tago su'aalana la weydiinayo foomna laga buuxinayo marka aad baan runtii ugu boorinaya inay dadku talaalka qaataan aad iyo aad baad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waxaan rabaa inaan ku booriyo dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ah iyo dawladda federaalka ahba in ay qaadaan talaabooyin la mid ah talaabadan maadaama dadka Hindiya ka yimi ay ka soo degi karaan meelo ka baxsan Puntland dadka Soomaaliyeedna ay isu furan yihiin oo ay isu socdaali karayaan si marka taa loo yareeyo waxaan runtii ku boorinayaa in maamul kasta ama heer state ha noqdo ama heer federaal ha noqdo policy tan la mid ah ay qaataan si badqabka dadka loo ilaaliyo. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.